asagu fahansan yahay oo ninka la yiraahdo garyaqaan oo loo yaqaano mahad waxa weeye waa nin South Africa joogi jiray garyaqaan wuxuu ahaa nin ka shaqaysto magaalada Johannesburg iyo Pretoria meel u dhaxayso oo tuulaa magaran waxa nooga sheekaya dhigayso hadda baalka ninkan waa nin ay ku dhaheen xaga tag ee soo dheh dollar baan u baahanahay buu yiri walaal $1,000 baan u baahanahay buu yiri cidna laga baahan information dambe oo ninka ku saabsan wax kasta waa dhameystirmeen codkaasna waa la sii deynayaa codkiisa oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa hayaan ku dhahay no face no case taasi soo igu qaado waa qisa dheer waa og ninka tunala joogo oo no abo warka maanta dhalo sugeeyna Cabdiriil هاي السوق هذا وري هذا جوج عبد الله جوج وحود هاي دوكر صعب كسر محمود اوكي والي مقلا سماها تفي عم بلغو مقلا الله ندير هلا دوبت صحافه horta hoos ma joogtaa iga hubi صحافه hallo yeero ninkan wuxuu og yahay niman xog hayd ilaahay ka barradi u jecel xog yiraahdo garyaqaan oo loo yaqaano mahad waxa weeye waa nin South Africa joogi jiray magaalo la yiraahdo Pretoria magarat waaye garyaqaan wuxuu ahaa nin ka shaqaysto magaalada Johannesburg iyo Pretoria meel u dhaxayso oo tuulaa magarat waaye ninka wuxuu ahaa nin landheera oo carradiisa joogo oo waxa weeye hantina leh dukaamana leh kana shaqaysto South Africa waaye arinta aaniyahu aad soo bandhigtay maalintii dhaweyd oo ahayd baasaboorka iyo qaabka uu baasaboorkaas ku yimid ninkaas baasaboorkaas wuxuu ahaa baasaboor foojira nin baa soo dhoofiyey nin la yiraahdo Maxamed Ciise oo agency inkiya toore ka xumaada operator ku wahay maxaa weeye hada ko salaabaan ahaye soo niyo marka hawsha keema marsiinay okay niyo garyaqaan horta waa nin halka ka shaqeysan jiray South Africa magaalo Pretoria la yiraahdo joogi jiray ninka marka niyo arinta nin waxa soo dhoofiyay la yiraahdo Maxamed Ciise oo dadka waxa weeye baasaboorada 2021 ilaa 2022 baasaboorada sameyn jiray oo dadka lacag boqol intuu ka qaato soo dhoofin jiray garyaqaan marka baasaboorkaas waxa weeye forger buu ahaa asagana ma lahayn garyaqaan wuxuu ahaa nin landheera oo soo dhoofay oo Mareykan joogo oo haddana waxa weeye sharci ay 94 qaatay oo landheera waxa aad ka sheegaysa daahiro ninka waxa nooga sheekaya dhigayso hadda baalka محمد عيسى أنا بقول شيء أنا وابين أحد جرمال محمد عيسى إن كان وانين يكون هنا حاجة تك إساس صوده وانين كمان تا نينو هنجوا يدقيسو شيكوين كني كاس بتقانا أو سكحرة بتقانا أو قصي جلاي بط يسقو جوجو برازيل يوني سلامانه هو ريح رسيو وحود جستي إنه $1 عبد جاب حاجة حتى تلفون ديوي $1 بان أباهنا هاي بويري ولا لو $1 بان أباهنا هاي بويري walaal wuxuu yiri $1,000 walaal wuxuu yiri Cali Cabdullaahi Xamarow igu dhib $1,000 kunkii la sii kunkii waa soo qaatay BMW ga fiican yahay asoo dhahay codkii waan haynaa codkiisa kunka uu ku wajisa walaalo meel allaan taagana dadkii oo cabdigaabkii oo telefonkayga xirtay asoo ooyayo codkii ooyinaan haynaa ninkii uu tuugayo maanta ayaa ku leeyahay hebel waa dacwayha ariya wuxuu ogaad moogta inuu god ku dhacay marka cidna laga baahan information dambe oo ninka ku saabsan wax kasta waa dhameystirmeen wax kasta waa dhameystiran yihiin codkaasna waa la sii deynayaa codkiisa oo ku tuugayo ninka Saleebaanka ah codkiisa waa la sii deynaya ani ma kaftamo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa hayaa wallaahi وبالله والله وهيان كلها وأنا لفافني عودك no face no case أنا كوسر هان أرمك أديك الدائرة ودان كعصر كور فيري دقيسو شوف Cabdiriil الله يوقف أسكت لنا مريكا ما أقام نك سالي سعي شغلني حلو كان سعيو
وما صنت أحمدو ير علي عبد الله اللي أديك ساعة هو كده لام كوسو دري ولما وكا عودكاس هرنا إيسي وي محكمة معنوي بالله سمعني عودك إيه ديك بطير كيف توقع الحوار cabdiriyal aan rabaa inaan waxyar u sheego cabdiriyalow qofka kuminti wax kugu soo qoray ii soo saar warayso waxaas wax socota ma ahan qofka la hadal waa in la soo baaray yarka hadda soo saaraysidna qolkaygu ugu yimid waa yar jooga Soomaaliya ma fahmaysaa marka adiga hebel kuminti wax igu soo qoro ma daaro dhan waa wada tuugo ma fahmay luuqa ii soo galan aniga waxaan rabaa inta la waraysto ma soo baarin lama caawiyo beebo وين صوبة eebta adduunka dhacaysa loo diyaar garoobo maalinta aan rabtaan nooga dhiga waxaan idin baraynaa dadka meelaha ka sheekeeya baahidu heerka ka gaareen say u oynayaan tahriibkoodii qisooyinkooda codadkooda soo bandhigaynaa maalinta aan rabto maxkamadda balashada maalinteeda kaga dhignaa maxkamadda jimcaha munaasabad weyn ay 50,000 qof daawanaysa rabnaa in lagu daayo codadka maalinta aad jeceshiin soo sheegta waxaan rabnaa qof dhahaya tolkee telefoonada iga xirta ee ooyaya ee $1 la ya ayaan rabnaa inaan intusino oo sii hanjabayo u hanjabayo ninka $1 u diray oo wuxuu leeyahay rasiid $1 ay u sirtaan hayaa waxaan kaloo haynaa codad hadda la soo duubay qof dumar ee nin raga oo wada hadlaaya iyo cod ka horreeyay wixii dha codkaan haynaa marka wax kasta annaga sirdoonkeena uu sarreeyaa meel kastoo lagu wada hadlayo qof aan noo joogto bal adduunyada gadoonkaas arka waa yaab mid saaxiibkii asoo quurna naagta soo duubtay oo ii soo dirtay naagta baa ii soo dirtay aragay tiri ilaa hadda wuu yaaban yahay luuqaan u dhigay waxaan maxkamadda naagta la shaqaysa maxkamadda waa maxkamad maastara maxkamadda cunta ummadda laga qabto maxkamadda albaabada loo laabo haddaan maxkamaddan la xirin dadku way waalanayaan gabdhaha horta gabdhuhu waxay ka jeceli maxkamadda male